sidaan halkan saaka idinkula wadaagiba ururka al-shabaab ayaa mar kale waxa ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe hase ahaatee waxaan kula wadaagi doonaa xogta iyo sirta ka dambeysay in mar kale ururka al-shabaab ay u bareeraan in ay la weeraraan ama sidoo kale ay la wareegaan guud ahaanba degmada Aadan Yabaal oo aad ogtihiin in ay ku sugnaayeen qaab badan oo mas'uuliyiin oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya maxaa sababay ciidamadii ugu badnaa oo halkaas dhowr mar uu madaxweynaha tagayba la geeyay in mar kale si fudud ururka al-shabaab oo halgelin aysan ku qaadanin saacado in mar kale ay la wareegaan degmada Aadan Yabaal ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe xog xasaasi ah war muhiim ah ayaad halkan ku maqli doontaa balse ila joog muuqaalka like saar sidoo kale janaalka subscribe saar oo hala dhaafin inaad subscribe-kiisa dhac ku siisid adigoo mahadsan muuqaalkana like noo saar si uu u gaaro saaxiibo badan hase ahaatee muuqaalkana share garee oo la gaarsii saaxiibo badan adigoo aad ayaan mar kale u mahadsantahay waa hagaag daawada soo dhawow markaa degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa mar kale waxa ay saaka aroortii sidaan halkan idinkula wadaagiba waxa ay la wareegeen guud ahaanba gacan ku haynta degmada Aadan Yabaal oo magaalo qadiimi ah oo laga saaray dhowr sano ka hor al-shabaab ma arkin in ay ku noolaadaan sidoo kalena ay joogaan eeriyada degmada Aadan Yabaal mudooyinkii ugu dambeeyay hase ahaatee haatan oo taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed Generaal Odawa Yuusuf Raage iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda militariga dawladda federaalka Soomaaliya Shuute uu ku sugan yahay furimaha hore ee dagaalka madaxweynaha dhowr mar uu tagay degmada Aadan Yabaal iyo Cadale halkaas uu ka abaabulay gulufka colaadeed ee lagu dagaalamayo ururka al-shabaab maxaa keenay in mar kale ururka al-shabaab ay si fudud ula wareegaan degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe su'aal ayaa halkaasi saaran oo dad badan waxa ay halkaasi saareen calaamad su'aal waliba tiro badan in mar kale si fudud ay ururka al-shabaab ula wareegaan degmada Aadan Yabaal halkaas oo noqotay furin dagaal Shabeellada Dhexe guud ahaanba oo ururka al-shabaab lagu horjoogo in gabi ahaanba looga saaro gobolka Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaanba gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya hase ahaatee al-shabaab way u fududaatay in mar kale ay soo weeraraan masaajidka Cali Guduud ay ahayd waxa ay si sahlan ula wareegeen iyagoo halkaasi ku laayay tiro ciidanka qaranka Soomaaliyeed sidoo kale tiro ay ku jiraan macawsleyda beeshaasi Abgaal ee ka dagaalanto inta u dhaxaysa masaajidka Cali Guduud iyo Cadale Aadan Yabaal iyo guud ahaanba Shabeellaha Dhexe maxaa sababay saacan ku soo aadiyay in al-shabaab iyadoo la horjoogo dagaal sidoo kalena ay ku sugan yihiin ciidanka qaranka Soomaaliyeed jiida hore macawsleyda ay caawinaad ka helayaan sidoo kalena duqeymo baan laga geysanayay masaajidka Cali Guduud inta u dhaxaysa Aadan Yabaal in mar kale ururka al-shabaab ay si fudud degmadaasi ula wareegaan kuna raaxaystaan mar hore gacan ku haynta degmada Aadan Yabaal ururka al-shabaab ayaa waxa ay soo saareen qoraal dheer taas oo ay mar kale ku sheegayaan in ay ka guuleysteen sidoo kalena ay kula wareegeen ciidanka qaranka Soomaaliyeed kala wareegeen degmada Aadan Yabaal haatan iyaga ay ku sugan yihiin gacan ku haynta degmada Aadan Yabaalna iyaga leeyihiin hase ahaatee dawladda federaalka Soomaaliya ayaan weli war ka soo saarin saliyaasha ciidanka qaranka Soomaaliyeed guutayaalka ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan eeriyada Aadan Yabaal iyo guud ahaanba ciidamadii halkaasi isaga soo baxay dibna ugu soo gurtay ururka al-shabaab ayaan weli wax war ka soo saarin sheegashada iyo sidoo kale libin sheegashada ururka al-shabaab ay sheegeen in mar kale ay degmada Aadan Yabaal halkaasi iyaga kula wareegeen Aadan Yabaal waxa ay kula wareegeen saaka in qaraxyo baawur ay ku soo rakibeen sidoo kalena ay ku weeraraan guud ahaanba degmada Aadan Yabaal iyagoo halkaasi ugu dambeyn ay ciidamadii halkaasi ka gurteen ayna halkaasi ururka al-shabaab si dhib yar ula wareegeen deegaankaasi degmadaasi Aadan Yabaal madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan waxa uu isaga daba noqday gobolkaasi Shabeellaha Dhexe isagoo hogaaminaya guluf colaadeed oo ka dhanaa ururka al-shabaab iyo guud ahaanba in laga saaro deegaanada gacantooda ku jirto hase ahaatee madaxweynaha iyo sidoo kale taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed gudoomiyaha maxkamadda Shuute oo gabi ahaanba ku sugan jiida hore ayaa mar kale ururka al-shabaab waxa ay sheegeen in ay la wareegeen degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe gobolka Shabeellaha Dhexe dhawaan ay degmada Caysaayta Cali Guduud la wareegeen sidoo kale waxa ay la wareegeen biyo caday iyo sidoo kale Ceel Cali Axmed oo ka tirsan guud ahaanba gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas ay ururka al-shabaab la wareegeen deegaanadaas al-shabaab ayaa waxa ay xoog saareen gulufkooda colaadeed iyagana ku aadan in ay la dagaalamaan ciidamada dawladda ee ku sugan gobolada Shabeellaha Dhexe iyagoo baay iyo boqol ka soo daldalay sidoo kalena soo daabulay ciidamadii ugu badnaa abid iyagoo isku keenay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxa ay doonayaan ururka al-shabaab in ay sidoo kale ay joogaan goboladaasi deegaanadana aan laga saarin sidoo kalena ay ku fara adeegaan dagaal adagna ay la galaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaanba
ururka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xoogagga macawisleyda ee ka barbar dagaalama dowladda federaalka Soomaaliya. si kastaba haatee ururka al-shabaab ayaa muddo dhowr iyo 10 sano waxaa dagaal la horjooga dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo dagaalo ba'an ku soo qaaday ciidamada qaranka Soomaaliya saldhigyo ay ku leeyihiin gobolada dalka iyagoo halkaasina ka fuliyo weeraro qorsheysan oo ay marka horeba dowladda ku carqaladeeyaan iyagoo inta badan ka fuliyo deegaanada iyo saldhigyo ay dowladda federaalka Soomaaliya ku leedahay sidoo kalena xoogagga macawisleyda ayaa iyagana ka liidanin oo waxay la galaan ururka al-shabaab dagaalka fool hase ahaatee waxay caawinaad ka helayaan ayaa iyagana cirka iyagoo ururka al-shabaab laga duqeymo badan lagu dilay horjoogaal iyo amiiro ka tirsan iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo xubin muhiim ugu jiray ururka ayay ku waayeen duqeymo ba'an oo dagaaladaasi ay dowladda federaalka Soomaaliya ku in markale ururka al-shabaab ay ugu cirib tirto koonfurta Soomaaliya daawade markale aad u mahadsantahay muuqaalka like saar hadii aad ilaawdina channelka subscribe saar muuqaalka like saar share garee aad iyo aad ayaad markale u mahadsantahay.